بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. وما بعد، درسي ودرسي سدحات كتاب كأني أها سفينة النجاة، كتاب كأني أهاوي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل شروط الوضوء 10. fasalkan sheekha wuxuu noogu sheegi doonaa masana noogu tilmaamayaa ama masana noogu cadaynayaa qofka raba inuu weysaysto shuruudooyinka laga rabo amase shuruudooyinka ay weysada ku ansaxdo. faslun haadaa faasilun kani wuxuu fasal u yahay shuruudul wuduu'i weysada shuruudooyinkeeda 10 waa 10 shardi baa loo xidhayaa. al-islaamu islaamnimo ayaa shardi ah. haddii islaam la yidhaahdo waxaa halkaa ka baxaya gaalka hadduu weysaysto ka ansixi mayso, leanna weysada lafdigeeda ayaa ah cibaado, isna ma ahan min ahli lcibaada, cibaadada ehelkeedu ma aha. walidaalik ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu addoomihiisa inay salaada oogaan ugu yeedhayay ama ugu wacayay, wuxuu ugu wacay biismi liimaan, magaca iimaan buu ugu yeedhay. ilaahay wuxuu lehay subxaanahu wa tacaala: yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum, kuwa iimaanka laga helayow haddaad u qumtaan baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. idan gaalkuna ehelkeedu ma aha. maxaa loo weysaysanayaa? in salaad la tukado. salaada wixii ka horeeyaa waa ka maqanba gaalka. albaabka ugu horeeyey ee islaamku ee salaada lagu soo geli lahaa, ee salaada lagu oogi lahaa ayaaba ka maqanba oo islaamka lagu noqon lahaa. waa ruux yidhi albaabka kore isagoo xidhan albaabkii baan ka dulboodaya, kan dhexaan ka galaya, mana soconayso wey. al-islaamu islaamnimo ayaa shardi ah. ruuxan muxuu ku islaamaa inuu kelimatu tawxiid qiro, wixii isaga uu caabudayeyna ee sanam ahaa ee xumaan ahaa ilaahay qayrkii ahayd inuu ka soo tago. waa tamyiizu kala soocid ayaa shardi ah. tamyiizka haddii la yidhaahdo waxaa halkaa ka baxaya almajnuun wasabiy, canuga yar. sabigu nabigu markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam mataa yusalli sabiyu, markii la yidhi nabigu wuxuu yidhi idaa carafa shimaaluhu min yamiinih. xadiiska abu daawuud uu soo saaray. haddii tamyiis la yidhaahdo waxaa kaloo ka baxaya qofka waalan iyo canuga sabiga ah. ruficat alaqlaam wey, 3dii ilaahay uu qalimka ka dulqaaday. saa darteed ma yaqaanaanba waxa daahirka ah iyo waxa najaasada ma kala yaqaanaan. walidaalik markaa tamyiis baa shardi ah. wannaqaa'u ka dahirsanaansho ayaa shardi ah can ilxaydi, dhiigga caadada, iyo wannifaasi, dhiigga nifaaska. nifaasku waa dhiigga markay gabadha dhasho ka socda, kaasaa nifaas la yidhaahdaa. xaydkuna isna waa gabadha maalmaha bishiiba maalmaha ay fasaxa ka gasho wey. waxaana daliilu ah faatimata bintu abi xubaysh xadiidkeedii. gabadha baa nabigu waxay weydiisay calayhi salaatu wasalaam. waxay ahayd gabadh dhabar furan ku dhacay. dhabar furanku waa gabadha dhiigga ka soconaya aan istaag lahayn. markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: daalik cirqun walaysat bilxayda, kaa waa xidid go-ay ee caado ma aha. faidaa aqbalat alxaydatu fadaci salaata, waidaa adbarat faghtasilii wasallii. nabiga saasuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam. yacni dhiiggaa dhawar furanka intuu kugu socdo maalmihii
caadada ay ku imaan jirtay haddii la gaadho dee salaadii ka tag maalmaha haddii la gudbana salaada tuko xadiidka imaam bukhaari baa soo saaray raxmatullaahi calayh idan salaad faa'iido ma lahan maxay weyso bilaa salaada walaa faa'idata biwuduu'ihaa bilaa salaad weyse mala faa'iido ay leedahay aan salaad lagu tukanaynin wacamaa shay in la waayaa shardiga shaygaasoo yamnacu reebaya wusuulal maa'i biyaha gaaritaankooda ila albasharati jirka inay gaadhaan ama wa anlaa yakuuna dheh inuusan ahaan baa shardi ah cala alcudwi xubinka dushiisa maa shay yugayiru lmaau biyaha bedelaya maa shay yugayiru lmaa biyaha bedelaya xubinkii la dhaqi lahaaba shay midabka kalarka biyaha bedelaya inuusan saarnayn sida rinjigii iyo wixii la midka ah oo midabka biyaha bedelaya waalcilmu garashii aqoon in loo yeesho bifardiyatihi weysada waajibnimadeeduna in aqoon iyo garasho loo yeesho wa an laa yactaqida waa inuusan ictiqaadin shaqsiga fardan farad min furuudihi weysada furuudkeeda ka mid ah sunnatan sunno waa inuusan u ictiqaadinin aaminin wey waa inuusan aaminin yacnii weysadu waxaan soo marnay 6 waajib bay leedahay 6daa waajib fardan mucayana qof waa inuusan aaminin maxay inay suno tahay matalan wuxuu yidhi wejiga dhaqitaankiisa suno ah mase masaxa madaxa la masaxayo waa sunno hadduu fard mucayan ah uu ictiqaadiyo dee weysadiisa ansixi mayso weysadiisa ma ansaxayso walmaa-u biyihii inay ahaadaan baa shardi ah dahuuru kuwa daahir ah wax dahirin kara inay yihiin wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisa ayaa shardi ah wa dukhuulu lwaqti waqtiga gelitaankiisa ayaa shardi ah lidaa'imi lxadasi kan xadaskiisa joogtada ah inuu waqtiga usoo galo walmuwaalaatu xiriirin baa shardi ah inaan la kala gooyin bimacnaa xadaa'imulxadasku wuxuu la mid yahay xukmu mustaxaada gabadha dhawar furanka ku dhacay buu ku xugum yahay oo maalan kaadii baan istaagaynin ama saxaradii baan istaagaynin ama se aaryaal ka istaagayninba marka ruuxa noocaas oo kalea daa'imulxadas baa la yidhaahdaa dee waqtiga inuu u gala isagana waa shardi walmuwaalaatu in la xidhiiriyaana shardi weyn faslun haadaa faasilunkani wuxuu fasal u yahay nawaaqidulwuduu'i 4 ashyaa weysadaadana la soo baray way buri waxaana burinayaa 4 shay mid ka mid a cinda almadhab 4 shay mid ka mid a ruux hadday ku yimaadaan way ka buraysaa weysadii nawaaqidulwuduu'i weysada waxyaabaha buriyaa 4 ashyaa 4 shay wey alawalu midka koowaad alkhaarij ka soo baxa ayay weysada ku burtaa min axadi sabiilayni labada jid mid ka mid a wixii ka soo baxa ayay weysada ku burtaa min qubulin xagga hore oo qubulin ama xagga dambe wax alla wixii xagga hore iyo xagga dambe ka soo baxa ayay maxay weysada ku burtaa riixun aariyo ow gayruhu ama riixda wixii qaybkeeda ka soo haray shay kastaa ee ka soo baxa xagga hore iyo xagga dambe weysadii way ku burtaa ila almaniya manida mooyaane manida maahane inta kale weysada way ku burayaan manida
weyse wax ka weyn bay waajib ka dhigtaba weyse waajib ka dhigay marka isaga الثاني مثل لباد زوال العقل عقل تجتان كيساس ويصير كبرتا بنوم هدو كتغ أو غيره أم هدو غير كدو كتغ إلا نوم قاعد كيف فديي هرددي سماهاي ممكن نتكي مقعده سلكيسا من الأرض دونك كواتكي midka salkiisa dhulku ku adkeeyay waxa la yiraahdaa fadhi gobeedka ama fadhi gaban-gaabo murabbac sida loo fariisto soo ma jeedaan hadda sidaas oo kale loo fariisto weyse kuma burayso waxaa lagu daliila xadiidkii Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri kaana asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ahdihi ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون إمام مسلم بصوص عليه رواية كلام وإمام مسلم ولا يحكوت المامية ينامون أي بمعنى جلوسا أي وفرية أي هرد جريوي إلا مدحوا ذكرها رعسا من هو يسجري الثالث متك السدحات التقاء إني كرمان بشرتي رجل ننشركيسي وامرأة قبل إني كرمان استابتان كبيرين واوين أجنبيين أو أجنبي كلام لقول رب العالمين أن دليل عند المذهب أو لامستم النساء آيات وحقوق سراء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اللمس في هذه الآية وحيري اللمس باليد حديث إمام الشافعي مالك رضي الله عنه رحمه الله أجمعين يعني قتل ماما هل كاسو كفاتين وعكروا يري واللمس في اللغة حقيقة هو اللمس باليد إمام الشافعي سيغنا سيدا سكوف السرايا حلي اللمس قعنتا يعني اللغة حقيقة سوحة اللمس باليد لقول رب العالمين أنه دليل فلمسوه بأيديهم سيدا درتد مركا أو لامستم النساء بمعنى قال هذا تابتان من غير حائل تدلان لتابتو أيضا وحبا أدحين إن لتابتو أيضا ويسا كبرتا الرابع متك أفراد مس قبول الآدمي بني آدم كعوردي سهر إلقى وشدد ويسد كبرتا حانه الدليل حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها نيوحير عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ حديث أصحاب السنة بصوص عليه إمام الترمذي وحير حسن صحيح قتل مامي إمام البخاري وحير هو أصح شيء في الباب إذن تاوشد عورده هراء ويساكو برتا أو حلقة الدبري أما الدبر كيس وريقي نطابته ببطن الراحة على عشا على سيدين كتابته أو بطون الأصابع أما فرها على سيدين كتابته أي ويساكو برتا فصل هذا فاصل من انتقد وضوءه من انتقد وضوءه حرم عليه 4 أشياء. من انتقد قفك يكبر وضوء ويسديسا حرم عليه وحك حرام 4 أشياء. أفر شيء قفك ويسد كبرت أفر شيء بحرامك. الصلاة صلاة بحرامك، والطواف طوافك حرام بكيه، ومس المصحف كتاب القرآن كتاب شديس حرامك، وحمله حبارتي سنواك حرام. قف مرة داي ويسد كبرته
ده صلاة كان سيدي ماشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحول حديث إمام البخاري إمام مسلم يسوع سارين نبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متكين ده ويسير كبرت سلاديس إلهي أقبل مايا إلى وكسو ويسيستو طواف كنا سيدو كلو يسنى كان سحي مايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إمام حاكم بسند صحيح وكسو ساري نبي عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أحل فيه الكلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام طواف هو صلاة لكن صلاة قد وجهه إلى نوح طواف لحديث حلالي إن لو قد حل كرم لكن صلاة ما لو ما حل كرم ومس المصحف في كتاب القرآن كتاب شديد كحرام إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون مع كحيلة لا يمس إلا المطهر سورة الواقعة وحملهنا يدنا هديب الليل مسيكيسا أي حرام حنبارد سنة أو لا ويكسي حق كتابة ويحرم وحا حرامك على الجنوب متك أي جنابة كل عليه جنوب كجنابة وانصاب مرنيو موجبات الغسل بيهايت 6 سوماين ميدك markii laga reebo inta kale oo janaabada maxaa qofka inuu gabadhiisa la kulmo ama biyo taranka inay ka yimaadaan ama gabadhi baa caado ku qubays yaani caado ku dhacday almuhim janaabada waxa weey qofka inay biyo taranka ay ka yimaadaan masana xaaskiisa inuu u tago kaas waxa la yiraahdaa janaabo weey janaabada qofka ay ku dhacdo markaa waxyaabo ka xaraam ah buu sheekhu tilmaamaya wa yahrumu waxa xaraam ala aljunubi ki janaabada ay ku dhacday dushiisa 6 ashyaa 6 shay baa ka xaraam as-salatu salati baa ka xaraam wa tawafu waa ka xaraam ma tawaafi karo isna ومس المصحف كتاب القرآن كتاب شديسة كحرام كتاب القرآن كتاب شديسة وكحرام وحمله إنه حنبار ديسة وكحرام واللبس النقاشية كحرام في المسجد كدهدي سين لقونا لها مساجد كانوا يسكدح فديه سوى جناء قبا هذا حرام وقراءة القرآن كأخرتي سنة كحرام هي لحظة شيء كحرام ويحرم وحا حرام نقونا بالحيض بسبب الحيض وليك على السوتي سوى حرام نقونا 10 أشياء طبعا شيء قبل لي هدي على كل عضو وحا حرام كنقونا طبعا شيء gabadha nifaaska ku dhacayna waa la mid gabadhaan ay la mid tahay way as-salatu salat ba haramka salat inay salatu ka to gabadha caadada ku dhacday ayad inay tukata haram ku yahay wa tawafu inay tawaftana haram ku yahay wa ana dalila tawafka li hadith Aisha radhiyallahu anha hajka mar ay joogtay ay halka maaragtay caadadii dhiigii xaydka ku dhacay markaas nabiga عليه الصلاه والسلام xadiiska ugu tilmaamay ma yabkiiki ya Aisha maxaa ka ohinay markaas ay tirwaan caadi baa timid markaas nabigu ku yiri if'ali ma yaf'alu al-hajj in ghayra alla tatufi fil bayt hatta tathuri Imam Bukhari wa sahih حديث سانفيلي قال حديث وحديث صحيحة الله هو يعني سماه النبي عليه الصلاة والسلام قفك حاجة وحو سميني لكن هالطوافي إلا كظاهر نقطة ومس المصحف في كتاب القرآن كتاب الشديسة كحرام وحمله حنبارديسة كحرام أفرتا وحي كلام التهي محي من انتقد وضوءه
واللبث في المسجد مساجد كنجاشي كحرام من يكون أغاته وكحرام. وقراءة القرآن كأخرنتي سانة كحرام من القرآن كأخرسا كبرنا عادة كل عادة وكحرام. والصوم صوم كيبا كحرام والصوم صوم كيبا كحرام وقبر عادة كل عادة ما صومي كرته كان ما يهدي صومته لأنه حديث أمنا عائشة وحيتري كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا الصوم كإن نسوق بدنا الأمر تري الصلاة إن نسوق بدنا لما أمر تري بيتري. والطلاق طلاق بك حرامة قبل عادم تؤتين لفرا أيضا وحرام. والمرور مرتان بك حرامة في المسجد كدعدي سيني مرتب إن خافت دي كبقيسو تلويثه إني هلكا وسقيسو إن ديجي هلكا وغفر دومو هدي كبقيسو مساجد كمرتان كيسونا وكحرام. والاستمتاع كراحيس شك حرامة ما بين السرة والركبة حدونتي لو يدا انت ودا حيسان غبدا لوغا راحيستا يي لفتركيدنا waa ka xaraam weeymo ma banaana. فصل على فاصل كان يوحو فصل وياهي أسباب التيمم ثلاثة. فصل كان شيخ وحنا وشيغيا قفك هدو بيو وايو صلاة وقتgeeda uu soo galay waxay shariicada islaamku banaysay in la gabagabaysto ciida la isticmaalo. nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam ciidu waa qofka muuminka dahar qaadashadii weeyo kama qaala calayhi salaatu wassalaam. wuxuu kaloo nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam يعني صحابة أبنى إن بعيد استعمالان إلى القرآن كيسوع كله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا بيو إسان عيدا ونكسر كبر رئيس النبي إلى الله سبحانه وتعالى. أسباب التيمم مثل استمع جبستي أو عيدا لاستمع استعماله وحال الله استعمال يا محي سبب صدحا متكود. أسباب التيمم بوريسي السببه أسباب تيسو ثلاثة وصدح. فقد الماء بيئن لوايا شردها مركك هو صدح ذا متكمد وفقد الماء بيئن لوايا. والمرض حنون باي والمرض حنون شردها لأنه قفك حنون سيهي أما تصال النظر بمدح وقد دعي حبني واجب كلا دقي متكمد النظر كل دعي وباريسنا يوم والاحتياج وباهشو أي شردها إليه إلى الماء بياه لو باهضو لعطش حيوان أنكس له لو باهضو حيوان كاسو محترم حرمله حيوان حرمله أو أن أباهن سيد بني آدم كوكل هذا أباهن ببيه يعني أداد عبتو واحد يعني هداد كويسي ستاني راهده واحد عبته لي ميزي سادرت شريعة محي كوه قلاتي مركا يدا إنها تسكب وريشتي كوه قلاتي. وغير المحترم ستة كوة أن الحرمينين بلا حرمة إياها إسكاقاضية بلا حرمة ولحذا
hadday biyuhu u baahan yihiinna adiga ay kaa bataan waad isticmaalaysaa wey ayagu siimaysid. 6 waa 6 taariku salaati salaada kii ka tagay biyo la sii maayo lianna haddii la siiyo salaadii maxay ka tegitaankiisu u xoogeysanayaa. wazaani lmuxsanu kii zaani lmuxsankii ahaa isna waa kayru muxtarimkuu ku jiraa midka guurka soo maray oo hadda sinaysanaya ama ha qabo mise horay ha u kala tagaan hadduu doonee ruuxa isagaa hadduu naf baxayana biyo la sii maayo. wazaani lmuxsan kii guurka soo maray ee sinaysanayay ama zaanilowga ahaana la sii maayo. walmurtadu kii diinta ka baxay isnaga biyaha la sii maayo biyo lama siinayo kaa isaga ah. walkaafiru lxarbiyu gaalka dagaalka kugu soo duulay kaafirulxarbi gaalkii dagaalka kula jiray isna biyo la sii maayo. haddaa siiso maxay siisa isagaa ku noolaanayo. qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum ويخزيهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين. والكلب العقور ايغا بقنقوسكا أجنبي الله سيماي ايغا تدعونك ايغو صدح نوعوين. نوع كواد واي واحتر له ولغو وارسدا حوليه براعة او قريقي وارجييان kaas wax khilaafa oo ka taagan ma jirto inuu yahay muxtarim inuu yahay khilaafka ma jiro bal waa xaraam in la dilo. kan labaadna waa ay laa nafca fihi walaa darar dadna ma dhibo waxna ma taro asagana muctamadka waxa way annahu muxtarim inuu xayawaanada xurmada leh inuu ku jiro ayaa muctamadku yahay. bedka saddexaad waa alkalbu alcuquur wey eega dadcunka ah ama boqongoyska ah naylihii yaryaraa dhaafi maayo caruurtii yaryaraa dhaafi maayo dadkii waaweynaa boqontuu jaraya kaa isaga ah marka khilaaf kama jiro fii cadami ixtiraami in aan la ixtiraamayninba liannahu waxyaabaha dadka dhiba ayuu ka mid yahay oo shareecada islaamka ay banaysay in la dilo. xadiidka umna Aisha radiyallahu ta'ala samahayn 5 fawaasiq yuqtalna fil haram oo kama qaala alayhi salatu wassalam 5 xayawaan oo noolaa la dilayo fil xilli wal haram lagu dilayo. alfaratu dawliga kamid aha aqrabkii baa kamid ah maxay tahay haraankii ama dabaqalooci abeesadii kamid ahayd tukiya kamid ah. walkalbu alcuquur eega boqongoyska dadcunka ah wey. walkhinziiru doonfaarkiina biyo la sii maayo doonfaarka biyo la sii maayo. والكلب العقور ايغا بقنقوسكا هايس نبي الله سيمايو والخنزير دونفاركي نبي الله سيمايو والله اعلم وبالله التوفيق.